Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta waa idin salaamay meel walba adduunyada ka joogtaan magacayga waa Xafsa haddii taa markii ku horeysa aad janaalkayga soo booqanaysid kacna furan kusoo dhawaaw minika waaya ismartiyeynin fadlan saduu subscribe janaalka ku een isaar hadda hore ila joogtan waa ku mahadsan tahay maanta waxaa idin wada bariis biryani si fudud loo sameyn doono insha Allah isla socod wanaagsan sida ujeedaan saliid ayaa dabka ii saaran waxaa ku shubi doonaa 2 xabo oo basal oo soo jarjarta ayaa ku shubi doonaa bashasha waxaa sugi doonaa ilaa ay brown ka noqoto cabaar ayaa dabka ku hayn doonaa kadibna waa ka bixi doonaa waxaa kaloo ku shubi doonaa karoota iyadana markay bislaato waa ka bixi doonaa waxaa u isticmaali doonaa sharaxaad bariiska ayaa kor ka saari doonaa insha Allah waa arki doonaa bariiskan inaba caadi ma ah bariis macaan badan fudud qof walba xataa sameyn kara aad u fudud yahay اللهم ارزق أمي بركة في عمرها ونورا في قلبها وضياء في وجهها. اللهم احفظ أمي بحفظك واكلأها بعين رعايتك. اللهم اجعلها في أمانك وفي حرزك وفي رعايتك. اللهم اجزها عني خير الجزاء وأوفاه. اللهم اجزها عني خير الجزاء وأوفاه. اللهم ارزقني برها. hadda waxaa ku shubi doonaa karooto 2 xabo karooto oo soo jarjaray iyadana waa shiili doonaa markay bislaatana waa ka bixi doonaa kadibna waxaa gudagali doonaa bariiskeeni insha Allah. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تبسط على أمي من بركاتك ورحمتك ورزقك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تبسط على أمي من بركاتك ورحمتك ورزقك. hadda bashasheen ayaa dabka ku soo shubay wax yar markay shiilanta kadibna waxaa ku dari doonaa hilibka kadibna waxaa ku xijin doonaa xawaajiyada waa optional mid waxaa jeceshahay iyo waxaa haysatida ku darsanaysaa kadibna waa isku dabool doonaa markay shiilanta kadibna waxaa ku dari doonaa yaanyada markaa ku dara kadibna wax yar ku shiilanto yogurt ayaa ku dari doonaa nus koob yogurt ah kadibna glass biyo ayaa ku shubi doonaa markay qaleysanta kadibna bariiska biyo ayaa kusoo kari doonaa kor ayaa kaga shubi doonaa insha Allah waa arki doonaa. What does it mean to actually get the dua of your mother? When your mom or your parents will actually say, "Oh Allah," and they'll have something that is favorable to you implied in that dua. In this khutbah, I'm going to use at some point a hadith from Sahih al-Bukhari. The entire collection of Sahih al-Bukhari and that legacy and what it means to the ummah would not be possible without the dua of a mom. A very simple one. It's not simple in the nature of the request, but it was natural in how it flowed from her heart to her tongue. Her child was blind, and she made dua to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah cured the blindness of her son. And Allah subhanahu wa ta'ala sent her the good news that her son had been cured through Ibrahim alayhi salam, or seeing Ibrahim alayhi salam in a dream, giving her that bushra, giving her that glad tidings. And she wakes up and she goes and she sees her son, and her son could see. And everything that we have from Imam al-Bukhari, every single time a hadith is narrated from him, every single time
one of his works that is not typically ascribed to him is of benefit to the ummah. It goes back to that dua of a mom. It goes back to that supplication of a mom for her child. She didn't know that she was making history when she was making dua. She was just making dua for Allah to cure her son. She wasn't implying, she did not say, oh Allah, cure him so that he can compile the greatest book, man-written book in the history of mankind. She didn't do that. She just said, oh Allah, cure him. She made dua out of love for her child, that Allah cure him. And Allah answered her. And we all have her to thank for that. And of course, beyond that, absolute gratitude going to Allah subhanahu wa ta'ala. But the vehicle of that cure was the dua of the mother of Imam al-Bukhari rahimahullah. It's a way in which a person removes their greatest sins. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, a man came to him and confessed of a major sin. And he responded to him and he said, Ummuka hayy, is your mother alive? And he said, no. So he just said, then go seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Why did you ask if his mother was alive? That's what the students asked him. Why did you ask him if his mother was alive? He said, because I don't know of a greater act of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala than birr al-walida, than when a person honors their mother. I can't think of anything else that could possibly expiate a sin that heinous, a sin that major, like birr al-walida, like him honoring his mother. Allahumma ya dhal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ad'uka bi ismika al-a'zam, alladhi idha du'ayta bi. bariiskan ayaa samaysanay biyo ayaa dabka soo saartay. waxaa ku darsan doonaa hayl iyo qarfo iyo xawaajiyaal ku darsan doonaa iyo saliid. markuu soo karkarana bariiska ayaa ku shubi doonaa. bariiska 1 saac ayuu biyo iila yiilay. 2 koob oo bariis waaye 1 saac biyo iila yiilay waayo dab badan ma ka qaadnaa. marka biyo la sii dhigtid wuxuu ka caawinaa inuu ciyo ku bislaado. 1 saac ayaa biyo la dhigay. kadibna markuu biyaha soo karkaro waa ku dari doonaa insha Allah. waxyar baa karin doonaa biseel ma ka dhigay maasikoota iyadoo ah kamiira waayo dab labaad ayuu huuri soo maraya. kadibna bariiska ayaa korka shubi doonaa huurin doonaa. marka dhameeyo insha Allah waa arki doonaa siduu ku soo baxo. Allahumma arham ummi kama rahimatni saghira. Allahumma arham ummi kama rahimatni saghira. اللهم أسعد أمي كما أسعدتني كبيرا. اللهم أسعد أمي كما أسعدتني كبيرا. اللهم تقبل من أمي أعمالها صغيرها وكبيرها. اللهم اجعل أمي من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأكرمنا بالفردوس الأعلى من الجنة يا الله. اللهم ارحم أمي. suugada bariiska ayaa korkaga soo shubay. markaas waxaa ku korkaga shubi doonaa bashashi iyo karoodka haday soo shiishtay iyo 2 kalar ayaa isticmaalaya, mid jaalo ah iyo mid cagaar ah. kadibna daboolka ayaa saaraya. waxaa huurin doonaa qadar 10 daqiiqo ah. 10 daqiiqo kadibna insha Allah waa soo guri doonaa siduu ku soo baxo ayaa arki doonaa. bariiska inaba caadi ma ahan. bariis macaan badan, caraf badan, kaal iska arag, waqti badan ka qaadanaynin. tijaabiyo huwaal waa ka heli doontaan. اللهم ارحم أمي كما رحمتني صغيرا. اللهم ارحم أمي كما رحمتني صغيرا. اللهم أسعد أمي كما أسعدتني كبيرا. اللهم أسعد أمي كما أسعدتني كبيرا. اللهم تقبل من أمي أعمالها صغيرها وكبيرها. اللهم اجعل أمي من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وأكرمنا بالفردوس الأعلى من الجنة يا الله. اللهم ارحم أمي كما رحمتني صغيرا. اللهم ارحم أمي كما رحمتني صغيرا. اللهم أسعد أمي كما أسعدتني كبيرا. اللهم أسعد أمي كما أسعدتني كبيرا. اللهم تقبل من أمي أعمالها صغيرها وكبيرها. اللهم اجعل أمي من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأكرمنا بالفردوس الأعلى من الجنة يا الله. اللهم تقبل من أمي أعمالها صغيرها وكبيرها. اللهم اجعل أمي من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري. dambeyntii afurkana sida ayaa usoo diyaariyey fiidigo ilaa inta haddaa soo gaad wagaaga mahad celinaya fadlan hadduu ku cajabi laag ii saar ray haddaa qaybta kommentiga lasoo wadaag asxaabtaada lasii wadaag. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. afur wanaagsan.